السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan markale asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada channelkeena qisooyinka nadaara laba waa channel aynu ku soo gudbino qisooyinka cajaa'ibka ah ee dunidan ka dhaca oo aanu isleenahay dadka Soomaaliyeed way ku cibra qaadan karaan waxna way ka baran karaan. haddaba toddobaadkan waxaan idin hayaa mid ka mid ah qisooyinka marka la yaab kale ee dunidan ka dhacay. أبو طلال الحمراني أو صحفيga reer Kuwait ayaa wuxuu qoray qiso la yaab leh oo cajiiba oo ku cibra qaadasho oo ka dhacday wadanka Morocco. haddaba qisadan waa qiso nooce ah wuxuu ugu magac daray darawalkii wadada kula kulmay gabadhii jinka ahayd. waa qiso markaasi u fiiriso cabsi ah markaasi u fiirsana wax badan laga baran karo. haddaba qisadan waxay ku dhacday ayuu leeyahay nin la yiraahdo Anas oo reer Morocco ah. Anas wuxuu u shaqaynayay company weyn oo iska leh baabuurta xamuulka ah ee isaga kala gudubta gudaha wadankaas qaarkoodna waliba ay u sii gudbaan dalalka kale ee dariska ah. baabuurtaas waaweyn waxaa lagu raraa alaabooyin kala duwan. marka meelaha ay baabuurta ka shaqeeyaan waxaa ka mid ah deegaan la yiraahdo mandiqa januubiya dhinaca koonfurta. dhinaca koonfurtu marka waxaa ku yaala dhul weyn oo saxaro ah oo cidla ah oo wadooyinka kaliya ay maraan oo baabuurta kaliya ay maraan laakiin dhul saxaro ah oo wax degan ama jirin ayaa ku yaala. sanadku markuu xiro waa dabayaaqadii 900meeyadii markay qisadu ka dhacayso wadankaasi Morocco. Anas waxaa ka geeriyootay gabar u dooneed oo inuu guursado uu rabay ayaa geeriyootay. maalmahan marka xogaa waa murugaysan yahay shaqadiisana wuu wataa xogaa laakiin niyad jab weyn ka muuqda. waa nin isdiyaariyay waa inuu guursado rabay oo gabadhii u dooneed iyo waqtigii kaliya sugayay. gabadhii marka waxay ku dhimatay shil baabuur. sheekaday marka ninkan gaarigii shirkadda ayuu soo kaxeeyay xamuul fara badan saaran inuu dhanka iyo saxarahan inuu ta dhaafo meel gobol halkaas ku yaala koonfurta inuu geeyo alaabti. caadiyan marka isagu wuxuu ka shaqeeyaa dhankan manaadiq januubiya la yiraahdo gobolada koonfurta ayuu shirkadda baabuurtooda waaweyn u kaxeeyaa. waa meel iska caadi ahayd oo weligii uu ka shaqayn jiray iska mari jiray. habeenada ka mid ah isagoo marka dhulkii saxaraha ahaa maraya oo cidla ah oo gaarigiisii saas u ganmaayo ayaa meel hortiisa ah wuxuu ka arkay gabar jidka dhinac taagan oo gacanta u taagaysa gaariga. marka wuu arkay gaarigii marka wuu qaboojiyay xawaarihii uu ku socday wuu dhimay gaarigii. marka maskaxdiisa waxaa ku soo dhacay dhowr su'aalood markiiba uu jawaab u waayay isagiya jawaab u waayay. war meeshan cidlada ah dad ma deganee gabadhan xagee ka timid wuu isweydiiyey. marka kale wuxuu isirino gabadhan inta soo luntay ama gaari ka jabay ama meelaha yaala dhowr su'aalood ayuu markiiba isweydiiyay laakiin ilaa iyadu ay markaa ka jawaabto isagu wax jawaaba wuu u waayay. gaarigii markuu soo dhawaaday halkaa wuu hakiyay wuu soo degay wuxuu ku dhahay sidee tahay waa fiicanay tiri maxaa ku helay. markaas waxay tiri anigu meesha dadka eeriyadan deganaa ku jiraa. yaabo meeshan meel la degan yahay ma dhul saxaraa oo bacaad oo maalinkii xataa aan la socon karin kuleylkiisa habeenkii baabuurta soo martay sidee dhulkan ugu nooshahay macquul ma ahane.
hadda ganaytir marka adigu waxaan ka doonayaa in xogaa ay dhaweysid xagee ku dhaweeyaa meel marka waxaa jirta bacaadka aad markii laga bixi rabo eri meeshaas ii joojiyeen soo fuulay gaariga soo fuulay ninka uu soo kaxeeyay marka dhowr su'aal weydiinayaa iyadoo de jawaabaheedu ma badna isagu marnaba niyadiisa kuma jirto waxa kan caalamkeena ma ahana waa al-caalamul jinn ay leedahay jinki oo bini aadam iska dhigay waaye isagu laakiin ma fahamsana laakiin jinku ma iska dhigi karaa bini aadam waxay leeyihiin marka sheekadu waxa ku jirta dad badan oo khubaraa jinku wuxuu rabo iska dhigaa mar wuxuu iska dhigaa yaanyur mar wuxuu iska dhigaa mar wuxuu iska dhigaa mas mar wuxuu iska dhigaa bini aadam mar wuxuu iska dhigaa waxyaabo bini aadamku marka ay arkaan ay argagaxayaan qaabka u samaysan yahay cabsi waxyaabahaas uu iska dhigaa marka gabar inuu iska dhigo nin inuu iska dhigo inuu oday waaye la iska dhigo habar waaye la iska dhigo waxa soo dhan uu sameey karaa leeyahay al-umum marka sheekadii sheekadanu marka waxay tahay darawalkii naagta jinka wadada ka helay naagtii marka uu soo kaxeeyay meeshii ku dejiyay wala ismac salaam wasoti wax kale habeenka la isweydaarsaday oo sheeka gaaray wax ma bandheen ikxee meeshaas igey uu geey intuu soo waday dhowr su'aal weydiiyay ka aamustay kadib wuxuu siri meeshan markuu marka ka soo tagay buu dhowr su'aal isweydiiyay wuxuu siri meeshaas loo degay meeshan 3 sano ka shaqeynaysa darawal ahayd dhulkan weliga waxba kuma arka xataa xayawaanka ku noolaan karinba oo macnaha kuleylka daran ee meesha ka jira iyo saxaraha waa bahalada xataa way ka cararayaan marka sidee wuxuu jira meesha bari aadu soo u nool dhika xusana wallahi iska soo haddana waa dadka badawiga ahoo maartay waxay u dhaqan igeen dalka Mauritania iyo waxa kan iyo dadka duubka weyn qaato oo madaxa wax ku duubto oo dadkaas qaybo kamida Marooka degan marka dhikan waxaas ma kala jecel iska soo kaxaystay gaarigiis meeshii rarkii u dajiyay hawshii qabsaday oo ku soo laabtay wadadii waxba muusa arkin haddana markuu dhowr maalmood joogo rarka la soo qaataa mar labaad soo maray wadadii soo maraya wadadii markuu soo maray isla meeshii ayuu haddana ka arkay naagtu tinaag caadiya ma aha quruxda ay leedahay iyo carafteeda iyo udgoonka ka soo baxaya wixii ninkan waa yaaban yahay naagta seebasha naagti markan asagu gaariga ka basoo degay darishadu kala haye waa ku salaameetire ya Anas ninkan wuxuu magacaaga yaa u sheegay ma habeenkii hore ay ku weydiisay aad u sheegtay asagiya shakiyaba magaciisa marka ku ugu wacaysa markan waxa leedahay ya Anis waxaan rabaa inaa sidii habeenkii meeshii igu tijisay hore isii qaadid wax soo qaaday soo fuulay gaariga ku soo dhacday markii cabaar la socday Anis waxa tiri adiga waxaad u egtaa qof murugaysan sida ku garatay waxay tiri sheekadaada iyo wajigaaga iyo qaabkaaga marka fiiri xogaa iska murugaysata waxba kugu dhacay miya ninkan wuxuu yiri ma waa iska fiicanaay haddana waxay tiri gabar ku doorneed miya wax ku dhaceen ama hooyada miya wax ku dhaceen waa loo soo ag marmaray ninkii marka waa dib u fiiriyay wuxuu ku garatay waxay tiri anagu dhulkan saxaraha dadka ku nool qofka waxay akhriyaan habkiisa iyo qaabkiisa iyo dhaqankiisa iyo kadib waxay gartaan waxa ay ninka weli bashakisana waa iska darawal khabardaar waayo iska socda heestiisa u shidan oo ku haya marka darawalada deewa heesaan waxaan iska shitaan ninka hawshaas u shidan markuu meesha geeyay uu dajiyay way tagtay
haddana markuu iyadu degto kabacdi isagu intuu keligii sii socdo ayuu isla sheekaystaa wuxuu naagtan baas maxay see ku ogaatay in naag kuu dooneed maan dhimatay iyo maxay tahay waxaan iska dhahay iska socda ninkan habeenkii saddexaad markuu meesha soo maray isla meeshii dana taagantay ninkan wuxuu dhahay markaan xaaladu caadi maan maxay tahay midaan habeen walba meesha kuu sugaysa markaas waxay tiri markay soo socda waxay tiri dhageyso caawa gurigeena geey war meesha guri kuma yaalle xagee ku geeyaa caawa guri meesha noogu yaalla aan deganahay gurigeena geeya tiri caawa maaragtay meesha aan kugu soo casuumo qof fiican baa tahay dhowr habeenaa maaragtay soo qaaday caawa dee maadaama darawal aa tahay shaah iyo waxaan kusoo siiyo guriga iyo soo aragti ninka dee naagta dee quruxda iyo carafta ninkana dee waa nin iska darawal ah waa garanaysaa darawallada waa allowshaal waxay ka naxayaan male ninka uu shakisaya marka wuxuu leeyahay meeshaan soo guri ugu yaala xagee ka baxa war inta ka baxay tiri meel bacaado meeshaan oo wada yar ka samaysanta gaarigii la soo galay jig guri dhooba ka samaysan ah u muuqda marka oo gurigaas miyaa nalka haya haa gurigaas waa guriga joojiyey gurigii gudaha soo galeen guriga hool waa hool guri qolal iyo inuu ka samaysan yahay iyo qolkan iyo soo lama rabo hool waa hool camala loo sameeyay meel bannaan waayo oo darbiga ku wareegsan kaliya hool waa meeshaa soo galo ninka asaga ka sheekayn doona anisaa sheekadan qisadan uga warrami doona dadka marka anis wuxuu meeshaan soo galay qolkii markaa waxyaabo dhaa markii qolka albaabkiisa meelaha dirin oo dhigto meeshaan fariisanay shaah nacnaca naloo sameeyo marookaanka dee aada looga jecel yahay shaahi nacnaca nagti ka saarno wax lamida weligay shaahaas aan cabay iyo dhididku iga keenay noloshayda ma arkin meeshaan ku sheekaysanay marka waxaan maqlayaa ure qajaf iyo waxbaan guriga ka maqlayaa laakiin wixii maba arkaayo yidhi aniga markaasaa waxaa inu yidhi gurigiyaa kula degan markaase waxay tiri dadaa ila degane adiga ha u baxen meeshaan ku sheekaysana shaahiyaa cabay way soo sabootisa gaarigaygaan soo koro waa soo baxay haddana waa isweydiiyo dhah warniyow war waxaan maxay ahaayeen meeshaan see loogu noolyaha loo degaya waa qolo imtixaansane maba igu soo dhacayso waxaan inaysan adduunkeenna ahayn oo caalam kale yihiin oo jin tahay iyo waxaan maba hayaba aniga waxaabay iiga dhegan tahay naagtan sidee uga dhex baxdaa camal mafahamt naagta darawalku darawal caadi baa naagtooba ku haystaaba isagu naagtan quruxda badan carafta badan caadi maahanuu leeyahy waa laysoo sabooto yiri jirkeeda hal mar ma taaban markaan gacanta u taaga waxay leedahay ka joog isilaali ani adiga afkaa ka sheekaysanaynaa marka waa soo baxay gaarigaan soo kaxaystay meeshiaan tegay waa fakarayaa warniyo wax ruuxaan maxay ahaayeen inaad sidee wax u jiraan naagtu maxay ahayd naagtu waaba anaaba iska jeclaaduu yidhi markii dambe oo aan soo noqonayo dariiqaan soo marayo ma arkuu dhahay markii kale aan sii socdo le arkaa markii dambe haddana habeenkii kale meeshay taaganta meeshaan waaba meesha ay ii istaagtuu dhahay kaala sheeg markaan soo maraayo wixii dhan way ogtahay markaa meesha soo istaagay haye caawa guriga maadeyno haa caawa nacnaca wax ka duwan maaragta aan ku siinaa tiri nacnacay maka hesha shaahi ah waa ka elow dhahay lakeelay tiri caawa alaab kalaan ku hayaay ninkii oo soo baxay gurigiyaa laisla yimid markii guriga aan imaaduu dhahay gurigii hool waaye shaahii nacnaca naloo soo shubay markan wuxuu yidhi awal inaan taabto jirkeeda way diidaneed soo maaha hadda waxay ogosho yidhi ayadaa i taabanayso gacanta iga qabanaysaa barafay noqonaysaa gacanta saas markay iga qabato habeenkii dee halkaasaa wuxuu yidhi aan wixii
dembi aan ku galay iyo naagta jinka eedii aniga halkaasaan maaragtay dabka isaga dhuminno yiri ilaahay haga cafiyo yiri meeshaas waxbaa ka dhacay laakiin anigu inay jin tahay in kale war kama hayo dhah waaba iska jeclaado yiri naagta waaba soo baxay way soo sabootay soo baxay habeenkii kale markaan meesha joogno gurigii la iima wadino yiri habeenkii dambe gaariga joojiyay dhawaa joojiyay kasoo deg gaariga waa kasoo degay meesha gaariga hoostiisa fariisan waa sheekaysan waxay tiri dhageyso aniga haddaan jin noqdo ka war macnaha may nacaysaa caalamkan caalamul jin iyo caalamul bashar haddaan kala noqono lacalla miyaad inacaysaa aniga markaasaa waagu igu baryo intii kaloo dhan qabardaara iska awir waa nin iska socda ahaa naagtan quruxdeeda iyo wixii isagana indha daraandaray oo iska wareersanaa caalamul jin iyo caalamul bashar ahaa maxaa ka wadaa may lacalla aniga haddaan noqdo qof jin ah ma iga tegaysaa waa kaa tagaa maahane ma kuu soo dhawaana waa kaa tagaa maahane kuuma soo dhawaanayo saa kuugu soo dhawaana annagu adiga iskumaba iskayne jin iyo annaga ma iskayna iyo bini aadam waxaan hagu ciyaarino yiri waxaan jin iyo waxaas inaga daa haddaan cabsinin wara dhageysay tiri aniga waxaan ahay jin haye adiguna gabadhii kuu dooneed waa kaa dhimatay haye anigana adigaasaan kugu haystaa waaba iska kaa jeclaaday haye marka waxaan u baahanahay aniga iyo adiga wixii hore ona dhex maray ilaahay hanaga cafiye inaan isguursano guur haa adin baan ku guursanaa waa hadda jin maa tahay jina ahay tiri aniga haddaan sidayda jinka ah isku kaa tusiyo waa argagaxaysaa marka saan quruxda badan iyo alaabtaanaan kugu wadayaa marka kasoo fakar colays ma jiro isku kaana keen marka kale dhigkaa markii jina ahay ay tiri iyo dib markuu maskaxdiisi meeshii uu kasoo qaadi jiray cidladii gurigii shanqartu socotay oo cidna uusan arkayn wixii oo dhan inta kusoo dhacay ninkaan markaasaaba cabsi usoo degtay shirkadii inta taga wuxuu yidhi dhagaysta manaadiq januubiya dambe gaari meydin kugu wadaayo macnaha gobolada koonfurta dambe gaari xamuula ma u kaxaynayo yidhi aniga shimaalka ii diro dhankaan waqooyiga maaragtay oo goboladan oo aan saxaraha lahayn oo meel walba tuulo ku taalo dadku degan yihiin meeshaasaa ku wadaa yidhi gaariga halkan maba geenayo maxaa dhacay maya okay dhe kuwa shirkadani fiican hataa dhowr sana nala shaqaysa xaggaa loo soo wareejiyay marka wuxuu yidhi hadday run ka tahay ay jin tahay halkaana ay ugu imaaneen haddii ay beenteeda ahaydna meesheedaasi iska joogay aniga afaaraheyda waa ka baxoyn ninkii gaarigii wuxuu bilaabay dhankan waqooyiga inuu wado markuu dhowr maalmood watay gaarigii usan waxba dareemin waxna arkin maalintii dambe meel biibita oo habeenkii lagu caweeyo oo dadka baabuureyda ay soo maraan gaarigii inta dhigtay ayuu hurdo camiiqa iska galay gaarigii meeshuu dhigtay waa iska hurtay meeshuu dadkii biibitadii wixii lagu sheekaysanayo oo ninkaa iska hurtay salaadii fajarka markuu soo kacayo agteeda ahayd ayuu wuxuu dareemay caraftii uu naagta ka dareemi jiray barafuun nooc kale ay soo marsataa ninkan waa wareeraaba markuu orayo barafuunkiia u soo carfay markuu indhaha saas u kala qaaday gaarigii dhinaciiseeba fadhidaaba waa gaarigii uu isagu saarnaayo kor ka saarnaa albaabada dhan uu soo xirtay oo loog soo gashaday oo seexday ayay dhinaciisa fadhidaa waxay tiri niyow dhagayso goboladii aad soo mari jirtay meeshii aan deganaa waa ka soo tagtay inaanan ku arki karin maamuud ninkaan marka hadalkii ku dhagay waxay tiri dhagayso kasoo fakar anitan waxaan ku siiya 2 bilood haddaa kasoo jawaabi weysid tallaabaan kaa qaadaa laakiin weli waan ku jeclahayo
waxbaana dhex marayo marka labada bilood marka hadda halkan waxaan kuugu imid inaan ku tuso inaad iga baxsanayn ninkii waa khalkhalay waa wareeray meel laga jiro aqooway qolkiisa markuu yimaado guriga urteedu dareemaya ya carabashi barafuunkii ay barsanaysay naagtii jinka ay musqusha hadduu galo way soo carfaya war meel kasta ninkii meel istaagu waay ninkii hurda waa ka guurtay anis ahaa saaxiibadii waa ka go'ay wareeraa u yimid nin xamiid la yiraahdo oo saaxiibkiisa oo isaguna dadka baabuurta wada ah ayaa wuxuu yiri anisow indhuhu waa ku gaduuteen adigu dhan midabkaagu waa badalmay waxbaa ku haysteen iyo maxaa ku haye waxaan ka weyn gabadhii ku dooneed oo dhimatay murugadan kale ku haysata maxay tahay ninkan wuxuu yiri niyow dhageyso wixii jiro dhan uu sheegay gacantu ka saar wuxuu yiri niyow dhibkaas ay haystaan naagta jinka ahaa iga daba harila meel aan galan male musqul haddaan galo way joogtaa qolka jiifka waa ila joogtaa warniyow maxaa sameeyaa ninka marka wuxuu yiri niyow nin waxaan kuu geynayaa sheekha oo marookaan ahoo waxa kan jinka iyo waxa kan dadka ka daaweeya nakeen ninkiyaa loo soo waday sheekhiyaa loo geeyey sheekhow ninkan arikaana haysta waxaana ku dhacay sheekhu markuu yiri waa dhacdaa marka naagta quraana marka la akhriyay ninkan marka wuxuu siiyay quraan meel lagu tufay uu jirka marsaday wixii oo dhan u sameeyay xoogaa ninka niyadii u degtay wuxuu yiri marka cabsanin nalalkan meesha ka shidan way damayaan waxa imanaysa naagtii jinka ahayd iyo adiga la diin kara garqaadaya aniga gartiina galay oo naagtii jinka ma halkan imaanaysa warshiiqo aan iska cararmay ma cararaysid halka fadhinaysa nalalkii meesha ka shidnaa wuxuu dhan la damiyay naagtii jinka ahayd ninkan marka waxbuu dareemaa dabayl iyo carafteedii iyo wuxuu yaa yimid deg way soo degatay markaasaa marka waxaa la weydiiyey naagtii waxaa la ninkan miskiinka ah oo shaqaysanaya maxaa ka rabtaa maxaa ninkan ku dabadhigay markaase waxay tiri ninkan isaguna waa jecel yahay anna waa jeclahay laakiin marka hore waxaan ku heshiinay inaan iskuursano markaan u sheegay inaan jin ahayna sheekadii buu iiga baxay markaasaa ballantii iiga baxay marka hadda waxaan rabaa tiri ninkan inaan guursado ninkan ma guursan kartid isku ma tihdiin laba caalama ka kala tirsan caalamul jin iyo caalamul bashar isaguna ma xamili karo marka dambe waa waalaysaa ninkan ma shaqaysan karo ma cibaadaysan karo marka ninkan waa inaad isaga hartaa haddaa ka hari weysid maaragtay waa ku gubaynaa qur-aanaa kugu gubaynaa naagtii markii dambe waa la handaday marka waxay tiri mid ha ii ballan qaado haye inuusan naag dambe guursanayn aniga waa daynaa maxaa kaa galaa layiri naagtiisa dambe iyo mustaqbalkiisa u hor istaagaysaa waryaaba adduunkaaga raacuu dhahay ninkii marka qur-aan oo inta akhriyay naagtii qaylisay markaase waxay tiri waa iska daayay farahan ka qaaday waa ka tegay ninkii marka sidii naagtii looga reebay ninkii qur-aana la faray waxaa layidhi salaada duko 5 salaadood duko adkaartan akhriso qur-aankan akhriso mar walba jirkaaga mari ninkii marka waxa u soo laabtay cabsidii tartiib qalbigiisa uga baxday naagtii qalbi markuu maartay salaadii daa'imay oo khamiista iyo isniintii soomay oo cibaadadii uu maartay toos ka dhigay oo quraan akhriskiisii u badiyay waxay way ka hareen ilaa markii dambe wuxuu yiri marka ninkii naag dambe guursaday marookaana ilmay u dhashay mustaqbalkiis marka ninka oo odaya ninkii la kulmay ayaa wuxuu u waramay uga sheekeeyay qisadan cajiibka ahayd ninka qoray ee leeyahay Abu Dalaal al-Ahmarani oo anagu aanu ka soo xiganay qisadeena toddobaadkan akhyaaray inta aynu ku soo gabagabaynayna fakarkeena aragtidiina waa muhiim noo soo qora maxaad ka faa'iideen
maxaa laga cibro qaadan karaa qisadan haddaba sheekadaas ayaanu barnaamijkeena kusoo qaadan inta aan mar kale kulmayno asxaabay meel kastoo aad joogtaan iyo qisooyin kale iyo channelkeena qisooyinka nadaara 2 nabadgelyo